السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa KADIYE GROUP oo idiin soo tabiya casharo aad u qiimo badan. maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay waa cashar aad u fudud iskana gaaban oo kooban. casharkeenu waxa weeye sida looga bedelo picture-ka iconada desktop-ka ku yaala. iconiska desktop-ka ku yaala sideed uga bedeli kartaa muuqaalka amaba sawirka. waa cashar yar oo iska fudud. waxaan uga bedeli doonaa marka koowaad waxaad soo diyaarsanaysaa sawirka aad doonayso inaad ku bedesho. inagu maanta waxaan sawirkana ka bedeli doonaa mid ka mid ah iconadan desktop-ka inoo yaala oo aan ku bedeli doono loogada KADIYE oo ah tan. loogadaas ayaynu ku bedeli doonaa mid ka mid ah iconada inoo yaala shaashada amaba desktop-ka sidaad u taqaaniin. waxaa soo furaynaa guide. waa software yar oo loo isticmaalo qaab Photoshop ahaan ah. wax wal oo Photoshop-ka ku jira waad ka helaysaa. software-kan sidiisa banaanba waa bilaash ama wax lacag ah lagama rabo. marka aad soo dejisanayso waxyaabo badan ayaad ku arki doontaan haddii aad eegto marka aad soo dejisato. inta badan waxaanu soo dhignaa softwarada shabakada KADIYE GROUP oo ah blog, taas oo ah kadiyegroup.blogspot.com. software-kan kicitaankiisu uu iska yar culus yahay, waqti qaadan mayso laakiin inta uu soo kacayo. software-kan waxa uu ka mid yahay softwarada aan lacagta ahayn ee haddana u shaqeeya qaab Photoshop ah sida Adobe Photoshop oo kale. wax walna waad ku isticmaali karaysaa amaba waxbaad kaga bedeli karaysaa. inagu maanta waxaynu isticmaalaynaa sida looga dhigo picture-ka icon. haddii aanu picture-kaagu icon ahayn ma qaadanayo inaad ka bedesho iconka software-ka. sidan ayuu soo baxayaa, uu kala qaybsan yahay. sidan markuu kuugu soo kaco waxaad tegaysaa file baad tegaysaa. marka aad tagto waxaad ku dhufanaysaa halka ay open ku taalo. waxaan soo furaynaa picture-kii aan doonaynay inaynu icon u bedelno. markaad ku dhufato sidan ayuu kuugu soo baxayaa. desktop-kaad imanaysaa. halkaa waxaa ku qoran KADIYE GROUP logo png weeyaan. open baad dhahaysaa. png-gaasaan doonayna inay ka bedelno aan ka dhigno icon. markuu sidaa kuugu soo kaco wax badan baad ka bedeli kartaa. waa kuwan tooliskiisii. move toolkii waa kaa, brush toolkii, wax walba waad ku helaysaa. waa qaab Photoshop ahaana. selectionkii waa kaa, rectangularkii waa kaa, everything-kuu ku jira oo Photoshop-ka ku jira. xaggan leeyaradii weeyaan. xaggan waa brushka aynu isticmaalno. imika brush ayaynu taagantay. move toolkan ka dhigi karnaa. kadib kan waxaa la yidhaahdaa selection tool ayuu ka mid yahay. inagu intaa midna uma baahnin ee waxaan doonaynaa inaynu icon keliya u bedelno. waayo marka hore waxaa png u ahaa. file baynu tegaynaa. file ayaynu tegaynaa. file markaynu tagno save iyo save as toona isticmaali mayno ee waxaan isticmaalnaa waxa loo yaqaano halkaa waxa ku qoran export as kaaban ku dhufano. halkan waxaan ka dooranaynaa formatka
oo noqonaya wuxuu noqonayaa Microsoft Windows icon. waa ka Microsoft Windows icon ayuu noqonayaa. kadib xaggan magaca weeyaan waynu ka masaxaynaa amaba halka png-ga aynu ka bedelaynaa. waxaan ka dhiganaa .ico oo ah icon. kadibna export waan odhanaa. markaan idhaahno inoo save garaynayaa. kadibna halkan wuxuu ku leeyahay large uu diidaya haddii uu weyn yahay calaamadda amaba waxaad doonaysa inaad ka dhigto. waxaa loogu talagalay balaca pixel, dhererkana waxaa loogu talagalay 128 pixels. kadib waxaad odhanaysaa export markaad tiraahdo wuu inoo save gareeyey desktopka ayuu inoo dhigay. waana tan marka aan doonayno inaynu bedelno Google Chrome-ka right click baynu siinaa. kadib properties baynu tegaynaa. kadibna change icon baynu tegaynaa. kadib halkan ayaynu soo furaynaa browser ay ku qorantay. waxaan odhanaynaa desktopka. kadibna kan ayaynu ku dhufanaynaa open baynu odhanaynaa. kadib okay baynu odhanaa. kadibna okay baan sii odhanaa. waa kaa bedelmay. markuu sidaa u bedelmay aan ku dhufto imika Chrome-kii baa inoo soo kacaya waayo waxaan ka bedelnay sawirkii amaba picture-kii. soo kiciyo waa Chrome-kii oo waxba aanad ka bedelin ood ka bedeshay image-kii oo keliya. ayaynu bedelnay. haddii aad rabto folder ka mida folderadaada waad bedeli karaysaa. sidoo kale waxaad tegaysaa properties, waxaad odhanaysaa customize markaad tagto halkan waxaa ku qoran change icon. kadib desktopkeeni imanna waxaan soo furaynaa iconkeeni aan ka dhignay. kadibna okay. kadibna okay baynu odhanaa. halkaa keeg waa folderkan ayaynu bedelnay. inta aad doonto waad bedeli karaysaa oo picturekaad ka bedeli karaysaa. maanta cashirkeenu intaas iska fudud ayuu ahaa. waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku xidhnaada KADIYE GROUP hoyga aqoonta IT-ga. wassalaamu calaykum.